heer wuxuu gaaray maxaa la jiray ee baadiyada dhowcleeya u soo gaday foodleyda ma ay haysteen inuu sex ku qoro oo ilmaha qolkooda ku dhex daawado gabdhii dhaxdooda ku dhex daawanaya sex intuu ee baadiyada ku qoray waxaan arkay Esther oo kadkad ku hayso qof sidii micnaha dhumana camal waan soo boodwaan aniga runta inaga hadla wala dagaalka meesha laga balaanishay aniga xaqiiqada banaanka inala keenaa fiican waxaan la inuu sex iga daawanayo anuu idmacay waxa been runta inala hadla fiican markii aniga soo baxay oo aniga aan soo istaagay way naxday Esther dawjitaan ku dhahay ma waxay tir qolkan wax ka soo qabsanay tiri qolkan wax ka soo qabsanaya ani dareen wax igu jirin hayaan dhahay waa iska saxday qolkii fadhiga iska saxday way laawatay subaxii arintii muhaawashada qadar ayaa i arkay tan guriga soo galay aniga isoo waxay tiri qadar anigu oonay tiri ani maxaan kaaga oonaa aniga waxaan oonay waxay tahay way cilma isbaday wad ciishay adduunku waxa la nin rag ah iyo ciil cadaab ay ka doorbidaa way u goobateen si xun ba igu dhaqmateen si xun ba igu goobateen dadkii eelkii iga soo kaxaysay Nairobi aan ciidanka garinay ay keentay Soomaa laakiin Soomaaliya Maxamed anaga ku joogna bro anaga garabkeena waxa iga dar nabitaanka iga dar inaweyso dhimalaha bro qofka dhibaatada ii geysatay xitaa qofka bini'aadinka waxa fiican qof weyn waa hooyo Soomaaliyeed waa carruurteeda intaas la eg waxa fiican qofka marka YouTube ka hadlaysa xitaa hadalaha hada ku hadlaysa xigmad inay leeyna fiican ani ma cayn ma aflagaadin laakiin dhibaatada igu sameysay aan ka hadlay sax adi dhibaato sheegtay aan dhibaato sheeg aan ma cayn dhibaataan ka hadlay إذا حيتر عروتي سكسي تسجل بان كذابد والله أنا كل هذا آبانا جبر أنا لي جبر أنا ولا ما كل تاج جبر ستجير أنا وحياة قلدم كل رقم معي والله وما يسوى معقول ما أهن مركا سوري ولا ليال أصحاب خضر إبتدا كل جارتي أدبا أوجو ذا حماهي أنا حتى نفتي قبل هيرو أي جارتي صور تحتها أنا وحكي لسكدة افتيدان حتى كبد بعدين لا يعني تحكي لسكدة هذه برو عد وحكوية بس ما نقرأ عد وحكوية هو الطبقة عند جناي ما دم تشوقي نليرا عشي يكحيان حد كل هذا يعني نليرا والله هبين كحيان عشي جيستان هبين أدان واسك سحدان سما نقرنين إذا أنت أردت وكفر حسن تاي سوري برو سوري وحواي خضر أنا قرب كاجا تاجل أنا مرة بقرب كاجا أنا قال كان لحد جنا استوديو هذا كده هل كان إمام وحول بقى ربطت كدوبة صابته أنا وأركي أصحابته توجد لمان وحي كوضا لهاين يوتيوب فروق سمعت كلام مركا هذا يوتيوب كاجا هل كان صار إجينا يوتيوب كيسة يوتيوب اللي هاي مقال كان يوتيوب كيسة كداوان إنسان يوتيوب كيسة صار إجينا سميدن قرن مركا أصحابي وح عاوني وجبرني هاي وإيدي وين تعرف كان وين تجارسيسان هير وايو خضر وقفة ولا تقنان أصحاب بو سميني وناك سميدن كرن أصحاب بو سميني وناك بو سميني وايو هويا الصوماليات بو عاويني لكن ويكوجي سارتي مركا يدا يا هلكا جارسي وإذنك أساقنا يا هلكا جارسين كرو وإذنك سمع كرن مركا برادر نيد خير وشيك رالي النقو هل يجري يوتيوب كاغان هاد كدي مر والبا أباهتid إنا مقال دوبتid قول كان أدو فيريكويا سواء أنت جوكتا إده halkaan ku jooga kaamirada waatan halkan ku taara lightkeeda microphone wax walba oo qalab u baahanta ana ku hayo program soo diyaarso wax soo sameeyso halkan imo asxaabi halkaas kala soconaysiin insha Allah anigana waxaan garab taaganahay walaalkay ani mar walba waxaan dadka u sheegaa in aan caawiyo dadka dulman ani youtuber aan ahay youtube leeyahay mar walbana dadka waxaan u sheegaa igu xiran yaa yaqaan waxa uu sheegaa mar walba aniga inaan caawiyo dadka u baahan in la caawiyo khadarna inaan caawiyo hortiina ayaan maanta ka sheegay waan caawinayaa waan garab taaganahay wax walba oo u baahdo ayaa ku garab taaganahay computerkayga saasiinaya muuqaalkan ha ku edit gareysto youtube-kiisu soo dhiganaya fahmaysan marka asxaabi walaalkiin hal caawiyo khadar ugu dambeyn asxaabtaada maxaa leedahay wala asxaabta waxaan leeyahay waxay ugu dhacay ilaahay qoro alxamdulillah
ilaah wuxuu qorana qof kun sano ka weeyihiin aad iyo aad in ehelkii liga soo kaxay halkan la ii keeno saas in la qamo ligu gobto haddana hadal been liga soo sheego anoo dhibaatadii ka hadlay soo itin idaawana ilaah nagu dhaariyay nin maanta dad dhibaatay maana ama nin la dhibaateeyaan ah aan ku weydiiyo nin nin la dhibaateeyaan sababtoo ah qof asaga wax dhibaateeya oo hinmaba ka imaateen mid kale waxay tiri qadar maxaan ii oonay aan iida ma oonay calooshay dhaawaca mar waxa ii hor yaala aad iyo aad intaas xan u soo galay qorxada kulul 8 saac oo qaxootiye ah aan kaamil ku dabootay wax gatab ninka muu yaqaan dhitib waxa muu aqaan ana garab taagna dimalahan Soomaaliya waxa la garab taagnaada hali caawiyo waa sax waxa la garab aniga baahan xaaladda aad ku jirtay inkastoo aniga aan ku soo raadiyay waa aniga aan ku soo wacay oo markaan arkay muuqaalkaagii TikTok aan ku arkay intaan ku soo raadiyay kulli sidii wax ii jiraan wajigaaga ka arkay marka inaad dulban tahayna qof walba oo maanta ku hor imaado ayaa garan karo marka Soomaalina waa ognahay meel walba ay dunida ka joogaan waxay mar walba caawiyaan ay garab u yihiin qofka dulman maanta adiga dulmana tahay waana lagu dulmiyay dad baa ku tashtay dad aad adiga soo garab qabatay oo adiga fikir iyo dadaal iyo xoog iyo xinba aad gelisay yaa ku dulmiyay laakiin haddana ilaahay ima dulmin qofka meel ku gaar ilaahay kuma dulmin Soomaali ilaahayna waa ku joogtaa annagana waa ku joognaa garabkaaga nahay aad ma sida Ahmed aad ma sida soo bro asxaabay muuqaalku isku soo gabagabeynayna ninka odayga ah aniga igu ogtiin soo ugu qora bari ka macallin maxaa ka suurtooba aniga ilmeyga hooyo abo dhibki bari ilmeyga soo gaar anaga way soo gaareen midda kale ku saartay dabeecada qaab darana ku arkay oo aniga uu rabo inuu aniga idamaaciyo ana umul ay waliba oo ninkayga markaa soo kala tagnay aniga soo idamaacina ana umul oo markaa ninkayga soo kala tagnay wali xataa aniga maartay ninkii aan kala tagnay wali ma iloobin oo damaaci aniga damacino idamaaciyo hadduu idamaaciyeen aniga damaacigiisa raali kamay sababta qofka markaa adiga rabtaa qofka adiga markaa u baahan tahay oo mar ku jira xataa adiga ku jira haddaad u baahan tahay qofka asagana dad kuu baahdo waa okay laakiin qofka haddaad rabin qasab ma jiro dirqi wax la dhahona ma jiro maxaa la Soomaali waxay tiri qoolay qorqad biyo kuma cabto qof bil aadan oo qof ku sarrabin rabaayo ma jirto qofka meesha uu rabana laga mareebi karo meel uu sarrabina lagu ma qasbi karo ani qadar hadaan rabin ma aha inuu qasab ma aragtay xoog wax ku raadiyo wuxuu dabcin ani xoog wax igu raadiyo guriga dadka jooga dhalinyarada kulli aniga reer bulshada iska ah kulli guriga ka wada aslaaxi oo ka wada diro ani asaga ilmeyga bas aan guriga ku wada noolaano si asoo iqab kii iqabay baaba taas aan ka yeeli waay sababta aan reer bulshada ninka aniga qabay dhagaxda asoo iqabo asaga imaan jiray muxuu imaan jiray guriga waa ogeydeen 24 hours ninkayga asoo iqabo jooga aniga video asaga soo duubi jirnay waa asaga u tixgelin jiray rabitaankiisa inuu caan noqdo u tixgelin jiray ila duubi jiray odaygana uu saxba ka dhigi jirno inuu caannimo raadinay u arkay marka shalay asagoo aan is arknay soo ani marka dad ana la iqabina madax banaan aanahay oo wali xataa u sii gursan rabina ani aan rabin asaga inuu dabcin guriga dhan dadka aslaaxiyo mahaba ila dagaalay hebelo baa ila dagaalay Cabdiraxmaan baa ila dagaalay guriga dadka jooga maslax wiilka oo dhan la jooga Cabdiraxmaan maha qofku ka tagay mid qof walba la dagaalay marka waxa waaye markii uu dagaalkiisa batay guriga shay meel dhigo waa la weynaa alxamdulillah bil ibaad uu nagan qayaan kana sananag haday wiilashan ahaayeen hadda guriga 10 baa ku nool 100 baa ku nool hadda guriga shalay dhibka hadii iyaga ahaayeen maanta wuxuu dhib ku sii socon waay qadar markuu naga tagay anaga waa ka raysan shay baa meel dhiga ma yaalo ana meel dhiga ma yaalo hebel baa meel dhiga ma yaalo ani ilmiska korsataan min maanta bil isiinay ma jirta ana maanta ilmiga aan wax u waa haye taa waxa ii sii dheerad ay bariyada qashinku ugu qoray ilmaha hortooda ugu qoray ani guriga gabdhaha ii jooga ilmiga ani waa 3 gabdhood iyo 2 wiil waa ani gabdhaha meesha ii joogo wiilashii waliba gabdhaha ay badan ninkan wuxuu sameeyay ninka heerka gaaray inuu gabdhahayga ay bariyadooda sex ugu qoro waliba qolkooda ku dhex daawado maxaa ka suurtoobay dulmeed ii geysatay iyo dhibaatadii ii geysteen ilaah uu arkaya ilmahaaga adiga dhashana waxaad ani igu tilmaamtay oo ana ahayn aad igu tilmaamtay iyo ay baagayga aad igu tilmaamtana kuwa guri kulli jooga ku sameeyay ana kuma sameeyn dooni sababta ani kula hadlay aabaan ahay gabaran dhalay aabaan ahay somaan garan in aabana wax walba horta kama soo tagalaan ka gudub markii xigto dagaalka meesha laga leeyan qaaday ni sheegay Soomaaliya dagaalka arin socotay ahayd dhagaxle markay joogtay habeenaha kamid ah anigoo jiifo waa saalkii habeenaheed horta day ku dhahday haday dhahday muha dhayr dhex degan horta been bay sheegtay oo ilaahay ka furtay beenaalay ka daabad waay waxay been ku sheegtay waxay tahay muha qol ida
ay degneed ay u banaysay qolkaas uu jiftaa anaga xagee saxana ma taqaanaa anaga qol iyo fadhigan saxanayni soomana garanay sarirta ay ku jiifaan waa sarir aniga afkeyga iyo daldalankeyga aan ku gaday youtube aan ka gaday awaan horta liiga bahay ilaahay ajir xasan Allah iga siiyo kadib aniga waxa liigu bilaabay ina aniga li aan qadabeeyo oo li bahdilo sidii guriga liiga saar lahaa guriga liiga saaro sidii dhibaato ah nin waa dareemi kartaa guriga markuu joogo oo la dhaqmanayo saas ila dhaqma jirtay guriga uu silcin jirtay guriga uu warfaadin jirin labo ay tashteen waxay ugu tashteen sidii aniga markii casho la soo riday camal muhay waxay sameyn jireen cashada qaadi jirin qolka ligi jirin hoose ka soo xiri jireen ilaahay kugu dhaari Soomaaliyeey taamay qabataa istarna aniga damacayga ma gelin sababta ah hooyaday la egta aniga waa qof aan hooyaday la eg damacaniga ma galaayo kaal guursan ma balihi sababta ah shal waxaan aniga dhiigida dhaqaaniga damac soo galaan Soomaalida daawada ku weydiinaa nin shal gabadha garab taagna dhiigida dhaqay soo ana damacayga gali tistaan hooyaan ka dhigin jiray qaxooti markay joogtaan way bahneed because qaxooti cid garab siina ma lahan social media cid garab siina ma lahan laakiin waan garab taagnaa Soomaalina garanin halka markay keentana suxun bay la dhaqmatay mid xigtana reerkeedana runtii marka inii sheego wuxuu ku burbur waxay tahay ninka raga dartiisa Soomaaliyeey aniga naagta aniga xaliije damacniga ma gelin waligii abba iyo hooyo mooyaane wax kale ma dhihi jirin shukaansi iska badaa marwaba aan garabkeen ka fiilin jirin laakiin aniga waxaan ogaa inay igu shaqeysan jirtay igu jisaari jirtay laakiin Soomaaliyeey anan damacniga ma galo damacniga ma galaayo caruurteedana ay la qadar u dhex saaxanayna wali ilmaan qolka ma dhex saaxanin nimin baan aniga caruur gabdho yar yar oo 8 jir qolka maxay siixinayaan fadhiga arkaya qolka la arkay